وحرونتي دحاء جامعة أمة الصوماليات waxay ahayd halka ay jamhuuriyadda Soomaaliya ka heli jirtay aqoon-yahano wax lagu baray canshuurta dadweynaha waxay ka koobneed 15 kuliyadood oo lagu bartay cilmiyada kala duwan 27 sano ee la soo dhaafay waxa ku socday burbur marna waxay ka mid ahayd xarumaha laga hogaamiyo howlgallada nabad ilaalinta AMISOM inkastoo laga ray ciidankii deganaa 10 sano ee la soo dhaafay goobtan oo ah xarunta dhexe ee jaamacadda ummadda waxa gacanta ku hayay oo ay saldhig u ahayd ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi oo hadda loo raray shabeellada dhexe waxa iminka la wareegay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana jooga ciidamada dawladda oo ilaala ka haya tani waa fursad dahab ah oo soo hoyatay dhalinyarada gaar ahaan bahda waxbarashada wasiirka ka tirsan xukuumadda maanta jirta ayaa jaamacaddan ku soo bartay qaarkoodna macallimiin ka soo ahaa 1985 bishii Febraayo ayaan ka qalin jibiyay kulliyadda sharciga oo gadaashayda ka muuqata hadda labadii sano ku xigtay 1986 ilaa 87 waxaan barakaaliye ka ahaa isla fakultadii sharciga kadib waxaan ku guuleystay oo aan helay deeq waxbarasho oo wadanka Talyaaniga aan u aaday waxaan ku soo noqday anoo fasax oo imid 1989 bil fasax kadib markaan Itaaliya ku noqday si aan u dhameeyay waxbarashadina waxa dhacay dagaalkii ma awoodin inaan dib ugu soo noqdo markii iigu horeysay aan ku soo noqdo waxay ahayd 2005 waxaan arkay burburka jaamacadda gaar runtina waxay ahayd wax aad iyo aad calool xumo weyn madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa halkan u yimid si uu qiimeeyo xaaladda xaruntan jaamacadda ummadda taasoo qayb ka ah dadaalada dib loogu unkayo adeegyada dawladda oo ay ku jirto waxbarashada si xaruntan dib loogu howlgaliyo wuxuuna ka mid yahay hogaamiyaasha halkan wax ku soo bartay kana shaqeynaya sidii mar kale wax lagu bari lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed annaga dawlad ahaan waxa weeye waxaan ugu ballanaynaa si xoojino in aan maxaan ku raadin kordhino ilaahay waxna siinaan kordhino maxaan iraahdaa budgetka ama miisaaniyadda jaamacadda sidii annaga aan ku baranay oo fursad aan u helnay aan u siino dhalinyarada aan dhalnay oo ilmaheena ah ee fursadaas kale u helaan waa mahadsantihiin waxaan ku ballanay inaan dib u dhisano jaamacaddeena ardada wax ku soo baratay jaamacaddan ummadda ee haddana nasiibka u helay inay ka mid noqdaan mas'uuliyiinta dalkan ayaa dib u howlgelinta jaamacaddan waxay u arkaan tallaabo muhiim ah oo dawladdu qaaday jaamacadda waxaan ku biiray 1968 ayaan jaamacadda ku soo biiray 1974 baan dhameeyay 1975 kaaliye bare ayaan ka noqday jaamacadda ilaa ay dagaalkii sokeeyo dalka uu ka dhaco meeshaasaan wax ka baraayay ahmiyadda gaarka ay leedahay jaamacadda ummaddu waa jaamacad ay dawladdu leedahay waa jaamacad bilaash lagu dhigto lacag la'aan lagu dhigto waa jaamacad lagu galo imtixaan aanay ahayn lacag booliiba iska baasi ha socdo ma waa jaamacad laga heli karo ardo badan oo imtixaan ku soo gudbay oo gobollo badan ee Soomaaliya ka yimid Dr. Maxamed Axmed Jimcaale gudoomiyaha jaamacadda ayaa ila wadaagay xog kooban oo qusaysa laamaha jaamacaddan sidii u shaqeey jirtay iyo halka uu rabo hadda inay wajahdo marka xarunta jaamacadda meesha laga maamulay jaamacadda ummadda dhan ayay ahayd 7 xarumood jaamacadda ummadda lahayd xaruntii dhexe laga maamulayay ayaa meeshan waa xarunta 7aad ayaa waa 7 xarumood jaamacaddu leedahay laba hadda waa ku aragtay gudaha xamar ku yaala waa hirgelinaba tan waa sii saddexaad halka waxa ku yaala kulliyadda caafimaadka ayaa oo mataqaanaa digfar soo jeeda ayaa ku taala anigu waxaan ka baxay markii kulliyadda xanaanada xoolaha 83 ayadaan ka baxay ayadaan assistant ka noqday barakaaliya ayadaan waxbarasho ee dartay ayadaan macallin ka noqday marka asalkii meeshan ku soo jeeda haddana rakibkii jaamacadda ummadda gudoomiyaha jaamacadda ummadda yaan haddana mataqaanaa xilkeeda haya sida laga fahmayo magaca jaamacadda ummaddan waxa iska la dadweynaha Soomaaliyeed doorka dawladdu waa gacansiin iyo in dib loo nooleeyo hay'adaha waxbarashada dalka si dalku horumar dhinac kasta u gaaro jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ma aha hay'ad siyaasadeed waa hooygii waxbarashada ummadda u dhaxaysa dawladdu waa hogaamisaa kaliya macallimiin bay la raadisaa
inay horumar samaysay la raadisay shacbiga Soomaaliyeed lihidoodii wey inay jaamacadoodii dib u nooleeyaan oo dowladana gacan ku siiyaan ilmahooda berrito noqonaya hogaamiyaasha dalka horena waa u eray jaamacadda inay ka soo bixi karaan marka nin walba bulkeeti ninkii geeyaa wax weyn ayuu ka geystay sida ay qorsheynayaan maamulka sare ee jaamacaddan ummadda bisha September ee sanadkan waxa ay qaadanaysaa ilaa 1,000 arday oo si bilaash ah kuliyadaha kala duwan ee halkan laga furi doono wax uga baran doona qorshaheena mustaqbalka dhow waxay tahay jaamacaddana iyo xaruntani inay dib u howlgasho oo ardada Soomaaliyeed ee sanadkan 18,037 oo arday dugsiga sare ka soo baxayaan inay qaybta ugu muhiimsan ka qaato ardada inay helaan waxbarasho dawladdu ay mas'uul ka tahay in arday Soomaaliyeed oo ilaa 2,500 September-ta soo socota ay si lacag la'aan jaamacadda ummadda wax uga baranayaan dal kasta horumarkiisu waxa uu ku xiran yahay siduu u maalgeliyo waxbarashadiisa gaar ahaanna siduu uga fakaro dhalinyarada mustaqbalkaas ee dalkaasi uu leeyahay waana sababta ay dowladda Soomaaliya waqti ugu bixinayso in ay ka fakarto inay dib u horgeliso jaamacadda ummadda